ninkan aad u jeedid wuxuu ka mid yahay ragga ugu quruxda badan qabiilkiisa dhammaan gabdhaha qabiilkuna ay ku riyoodaan inay isaga oo kale guursadaan inay yeeshaan calooshan waxay ka maran dhibaato u cabbaan caano lagu qasay dhiig marka ay yeeshaanna waxa u furma dhammaan albaabada nolosha cidna awood uma lahan inay ku soo celiso hadal wuxuu noqdaa mid ka mid a ragga ugu hodansan qabiilka sidoo kalena wuxuu guursan karaa tiro intii uu rabo halka ragga caatada ahna ay ka yihiin qabiilka dhexdiisa kuwa la takooro nasiibna aan u yeelan inay helaan hanti sidoo kalena ay guursadaan waa mid ka mid a dhaqamada yaabka leh ee uu leeyahay qabiilka la yidhaahdo buudi ee dega dalka Itoobiya muuqaalkeenna maanta ayaynu ku lafaguri doonnaa dhaqankan la yaabka leh ee uu leeyahay qabiilkani la yiraahdo Boodi ayaa ka mid ah qabaa'ilka dega dalka Itoobiya waxayna degaan koonfurta Itoobiya qabiilkan ayaa leh dhaqan la yaab leh oo ka gaaryeelaya qabaa'ilka aynu naqaano waa mid koobaade qabiilkan badanaa dadkiisu ma gashtaan wax dhar ah marka laga reebo waxyaabo ka samaysan biro iyo dahab la isku geeyay oo ay ku qariyaan qaybo ka mid ah jirkooda waxaana lagu farsameeyay isla deegaanka qabiilkan ayaa leh xaflad ama isku soo bax sanadle ah oo ay u yaqaaniin KL isku soo baxan ayaa sanad walba lagu doortaa ninka noqonaya ninka ugu quruxda badan qabiilka sanadkaasi waxa ugu muhiimsan ee lagu xushana waa caloosha mar walba oo ay calooshaadu weyn tahay waa mar kasta oo aad ku guulaysan kartid quruxda qabiilka waxaana loo ogol yahay qoys kasta oo ka tirsan qabiilka inay hal qof oo ku matala tartanka keensadaan waxaana khasab ah inuusan qofkaasi ahayn qof xaasle ah qoys kasta wuxuu bilaabaa inuu u sii diyaar garoobo tartankan ku dhowaad 6 bilood ka hor waxay iska soo dhex saaraan qofka matalaya kadibna waxay geeyaan guri cariish ah oo isaga loo diyaariyay waxaa mamnuuc ka ah inuu dhaqdhaqaaq badan sameeyo waxaana la siiyaa hal nooc oo cunto ah oo keliya waana caano iyo dhiig lo'aad oo la isku qasay waxaana khasab ku ah inuu cabbo ku dhowaad 2 litir 2 saacadoodba qabiilkan ayaa lo'da qiimeeya waana ka mamnuuc inay gowracaan marmar dhif ah ma ahane marka ay rabaan inay dhiig ka soo shubtaan si ay ugu daraan caanaha waxay dalooliyaan mid ka mid ah xididadeeda kadibna marka inta ay u baahan yihiin ay ka shubtaan waxay xididka ku awdaan dhoobo ama ciid qoyan kadib 6 bilood oo istiyaarin ah waxa la soo gaaray maalintii tartanka qoys kasta wuxuu soo diyaariyaa ninkii matali lahaa waxa loo soo marinayaa jirka ciid iyo dambas kadibna wuxuu lug ku aadayaa goobta uu ka dhacayo tartanku marka uu yimaado goobta ayaa waxa bilaabmaya tartankan ayaa ku bilowda in dhammaan tartamayaashu ay saacado ku wareegaan geed ay xurmeeyaan kadibna waxa bilaabanaya in la qiyaaso caloosha mid kasta oo ka mid ah inta uu socdo tartankani dhammaan qabiilka yar iyo weynba oo kuwa daawanaya oo uu midba kan qoyskiisa matalaya dhiirigelin u samaynayo halka gabdhaha qoyskuna ay ninka matalaya dhididka ka tirayaan sidoo kalena jirka u marinayaan dareere ka samaysan khamro marka la qiyaaso calooshooda ayaa lagu dhawaaqayaa qofka guulaystay sanadkaasi noqdayna ninka qaaday biladda quruxda ee qabiilka waxaana laga bilaabo maalintaasi ilaa inta uu ka dhimanayo uu ahaanayaa mid ka mid ah ragga ugu quruxda badan qabiilka kadib marka lagu dhawaaqo natiijada ayay odayaasha qabiilku qowracayaan neef lo ah waana marka naadirka ah ee ay lo'dooda qowracaan inta qowracidda iyo howlahan lagu jiro ninkii guulaystay ayaa dhex mushaaxaya deegaanka qabiilka isaga oo ku faraxsan kuna faanaya horumarka uu gaaray wuxuuna waxay xilligaasi laga bilaabo awood u leeyahay inuu guursado gabar kasta oo ka qancisa gabdhaha qabiilka mana lahan xad cayiman oo u diidaya inuu guursado balse haddii uu rabo wuxuu guursan karaa 100 gabdhood dabcan gabdhuhu wayba ku riyoodaan inay ninkan oo kale guursadaan qoyskii uu ka soo jeeday ninkan guulaystay ayay u tahay sanadkaasi damaashaad waxayna ku faanaan in lo'doodu ay tahay mid nafaqo iyo wax soo saar leh waxaana tusaale kugu filan in ninkii 6 bilood cabbayay dhiiggeeda iyo caanaheeda uu noqday ninka ugu horeeya qabiilka qurux ahaan aynu u nimaano ragga la takooro qabiilkan oo ah ragga caatada ah iyo xitaa kuwa murqaha leh ee uu jirkoodu dhisan yahayba nimankan ayaa ah rag sabool ah oo ka soocan ragga kale dumarkuna ay ka didaan inay guursadaan waxayna ka doorbidaan in intii ay guursan lahaayeen ninkan ay ka mid noqdaan tobaneeyada ay guursanayaan
ragga caloosha leh